عشان شرف آد لو سو agaasima ayaa waxa lagu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane Maxamed Biixi Yunis oo uu weheliyo mulkiilaha hotelka Mansour mudane Cabdulqaadir Xaashi Cilmi kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay safiirka Somaliland oo fadhiya wadanka Britain mudane Cali Aadan Cawaale agaasimaha TV-ga qaranka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Aadan gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Xariir iyo Salaadiin iyo Cuqaali waxgarad kulankiyo sidoo dhacayna waa Yunis ayaynu caawa halkan ku soo dhaweynayna waxa runtii marti sharaf badan oo isaguna qiimo badan ah in aynu caawa halkan isagana la joogno Cabdulqaadir Xaashi Cilmi oo isaguna maalqabeena dhammaanna Soomaaliland xafladan caawa waxa soo agaasimay ama aynu halkan sharafka iyo wanaaga aynu maartay ku fadhino ka dambeeyay waxa weeye jaaliyada Somaliland ee ku sugan dalka kan UK iyo dhalinyarada labeenta ah subdada aan raado ama maxaa la yiraahdaa wanaaga iyo sharafka hadii jeeral la daba fadhida mas'uuliyiintooda dalka ka yimaada waa dhalinyarada table 7 oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo runtii waxaan leeyahay marka dawladda soo dhawow London ku soo dhawow shacabkaagii dhalinyaradu waa dhalinyar meeshan waa marka meeshii madaxweynaha ku soo dhaweeyay inaad lagu timaadana anagana aad u maantay ku dhaweeyna caawa wasiirkeena arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yunis iyo Cabdulqaadir Xaashi oo ah muwaadiniinta dalkeena u huray inay muuqaalkiisa u muujiyaan caalamka runtii aad iyo aad ugu dhiirigeliyay caalamku inuu ina soo eego markii ay u dhiseen meelaha ay seexan karayaan caalamka weyn dhammaantiin aad iyo aad salaamantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad iyo aad bay u fiican tahay inaan halkan carab isku nimaado isu wareysano waa loo baahan yahay waa ka gacaneesha xisbiga ay dambeeyo wadanka ka horeeya wadanka waxa ka horeeya waxaan leeyahay ragina dibadda soo baxay ee adduunka arkay ee inta uu furmeen saad maanta joogta ka kaca dalka loo kaco innaga ayuu innaga u dala innaga u kaca mar hore kuma sameeyay lacag ka faa'iido waxaan u sameeyay in la banaana inuu gufeeyo barbaran marka sameeyay kolka kuleyl la tago laga soo noqdo ninkii uu dhiditay iyo mas'uul meel uu ku bacad shaaka cabo ومن يرقبوا في سوق سنة عاد من ما تريدين بروحنا من ذلك قوة هذا سير واحد سميني لأن غير ذاك صوب حسن جامعة ذا تبي الغير نكر في لأن نكر في الإنسان إن حاجة سويت ما ذكرت الشكستان هو ذا الشيء وردك الله واحد يسوي ما لحد عن التاجر قبلك هي وكان كانوا ديم لا لا هدول لي الله شيء لكن هل في حتى هل شيء ما hawsheedii TV-ga qaranka iyo Somaliland iyo waxa la geeyay European Unionka khudbada aad iyo aad u qiimo badan bay waftiga wasiirku hogaamiyay ka jeediyeen guul weyn bay runtii ka soo hooyeen inaguna caawad in ku sharafno xafladan oo ku sharaftay runtii aad iyo aad baa runtii ku mahadnaqayo waana waxa runtii shacbiga Somaliland markay madaxdeena guul soo hooyso markay wasiiradeena guul soo hooyaan inaynu u qiro inagoo isku duuban oo ahsaab iyo shacbi iyo dhamaanteen runtii isku duuban aad iyo aad runtii ku mahadnaqaya qarannimadu waxay u baahan tahay inaynu daafac qaban wada jir inaynu ku hinjinay u baahan tahay hawsha bilaabantay yaanay qabood halka ka sii badato reer UK waxayna sugaya inaynu hogaankii jaaliyadaha dibadda inaga laynoo tirinayaa qabsano aynu halka ka dhaqaajino gaarsiinana inaynu ku sinno mas'uuliyiinteena oo platform wanaagsan oo ay ka duulaan marka haysto hadalkeedu ku dheerayn maayo wasiirka inoo warrami doona oo xogta inteeda badan siin doona laakiin shirka maanta Brussels ka dhacay yaan la yaraysan shirarkeed wuxuu daba socday oo ka dhashay shirweynihii ganacsiga ee London ka dhashay dadkii ka soo qaybay dad kamid ah ayaa hawshaas nagala soo xiriiray oo muwaadiniin Cabdulqaadir ka ka yahay oo dadka ila ganacsigu cid walba walaaleenaya oo walaaleeyaha ayaa hawsha talada la siiyay inaan isla ogolahay hawsha sidii baa lagu galay sidii baa lagu wada shaqeeyay sidii baa lagu diyaariyay halkaas ay maraysaa si baan yeelanay qoladii waftiga ku jirtay inaanu maanta qadiyada Soomaaliland baarlamaanka Yurub kaga hadalno oo la siiyo opportunity aanu ku address gareeyo
foreign relations committee-ga development committee-da kuwa defense-ka komishanada laftoodii markaa dad fara badan ayaanu maanta la soo kulannay oo aad iyo aad xiise weyn u hayeen dad fara badanna way nala shaqeeyeen dadkii isku soo duburiday nagala shaqeynay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa lagaga hadlay arrinka kayska Somaliland iyo qadiyadiisa legal inuu yahay waddan jira iyo state taagan waayo marka waddan laga hadlay waxaa laga hadlaa oo la sheegaa waddan waa maxay markaa waxa weeye shuruudihii ama requirements-kii waddan lahaan jiray waynu buuxinaa oo waddanku waynu xuduud mucayana lahaadaa وإنه شعب لهذا وإنه دولة لهذا وإنه agreements علاقات ذي أنا كذا عالم كنتو ضبطن. عبد الرحمن أحمد يقول تي في قرن كاس سوماليلاند برتمها مقالة على لندن.